anigu qofka runtii marka la igu sheego inuu musuqmaasuq yahay waa iga dhintay marka la igu sheego qofkaas inuu qabiil ka shaqeeyo waa qof maangaaban aan developed ahayn qofkaasna bulsho uma adeegi karo haddii shaqa laga siinayo qabiilkiisa iyo dhaqameedkiisu la shaqaynayo ag fadhiisanayo taasaa u bannaan laakiin ummad intuu soo dhex fadhiisto oo soomaali oo dhan ah laguma hadlayn karo maxaa yeele caqligiisa aad u yar iskoobkiisa maskaxdiisa aad u yar marka qofkaasi ummad looma dhiibi karo waxbana ma qaban karo maxaa yeele wax walba waxaa uga horeeya inuu qof aan mudnayn uu howlgashado wuxuuna ku howlgashanayaa waa bar garanaya qabiil horaan wax ku siiyo qofkaan ma laha dib u dhiska muxuu ka qaban karaa bilaacda muxuu ka qaban karaa dadka muxuu adeeg u geyn karaa shaqadiisa maaha qofkan waa bar garanaya waa isagaa mudan aqoon kuma fiirinayo karti kuma fiirinayo daacadnimo kuma fiirinayo marka qofkaasi waa qof caqligiisu aad u hooseeyo waxba looma dhiiban karo maxaa yeele systemkii o dhan iyuu ku cayaaraya qof musuqmaasuq ka shaqeeyana ummad uma adeegi karo maxaa yeelay annaga waxbaan rabnaa inaan dhisno qof musuqmaasuq ka shaqeeya waxbuu rabaa inuu dumiyo wuxuuna u duminayaa dan isaga gaar ah uu leeyahay oo kooban oo maxay tahay guri dhiso war guriga xaggee ka dhisanaysaa haddee magaalada quruntay magaalada haddaysan amni lahayn oo qofkii amniga ka shaqeynaya mushaarkiisa aan la siin karin xaggee ka dhisanaysaa guri caruurtaada xaggee iskoolka aadaya haddii adigu aada jeebka gashatay guri ku dhisatay macalinkii wixii la siin lahaa ama iskoolka loogu dhisi lahaa marka qofkaasna waa qof maangaaban ummad uma adeegi karo waa qof dan shaksi ah ka shaqeeya in laga dhaqaajiyo waayo marka meesha maxaa yeelay systemkii yuu cadow ku yahay wuxuu rabaa 3 malyan oo magaaladan joogto inuu tirtiro yuu rabaa uu ka hadleeyo mustaqbalka iyo nolosha ka hadleeyo laakiin qofka inta loo dhiibay mas'uuliyad weyn xoolihii ummadda qaatay wuxuu dilay 3 malyan oo qof yuu dilay iyo 3 malyan oo caruur ah iyo mustaqbalkooda ka qaatay muxuu ka qaatay 4 caruur dhalay isaga kaliya bas inuu guri u dhiso iyo wuxuu u laayay intaasoo milyan oo qof qofkaasna ummadda in laga qabto waa disease waa cancer in laga qabto in loo dulqaato maaha marka loo ogaado qofkaas haddii aan xiri karnaan xirno haddii in loo ceyb asturo maaha shaqada laga qaado laakiin haddaan qaban karno aan qabanno qofka tuug ah in dadka lagu ceebeeyo masawirkiisa idaacadaha in laga soo daayo leeyahay qofkan waa tuug ammaanadii loo dhiibo ku takrifalay trustigii dadku violate gareeyey ummaddana waa ka qabanay ma fahamta haddii la xukumana waqtigiis uu ku dhammaysto oo aanan la siinin maxaa yeele waa qof u soo jeestay inuu ummadda laayo